بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan fariin yar la wadaago ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. sidaan wada ogsoonahay qarnigii 19aad laga soo bilaabo markii gumaystuhu oo dhulkeena Soomaaliya yimi oo kala qaybiyay ummadda Soomaaliyeed waxay halkan dheer la gashay gumaystii halkaas oo ay hogaaminayeen gobonnimadoonka Soomaaliyeed dhaqdhaqaaqyadii laga soo horjeeday gumaystaha waxaa kamid ahaa halganka ay daraawiishtu la gashay gumaystaha in ka badan 22 sano kaasoo uu hogaaminayay halyeeyga Soomaaliyeed Sayid Cabdulla Xasan iyadoo ugu dambeyn gumaystuhu uu ka fursan waayay inuu Soomaaliya diyaarad cirka kaga duqeeyo waxaa kaloo kamid ahaa halgankii ay hogaaminayeen 13 dhalinyarada ahaa ee Soomaaliyeed ee SYL ay kula jireen gumaystaha iyagoo markaas raadinayay in ay ummadda Soomaaliyeed mar ay gumaystaha iska saardo ayna hesho xornimo iyo dawlad Soomaaliyeed 13 dhalinyarada ah waxay dhaliyeen fikrad wadaninimo waxayna soo hiyeen xornimo midnimo iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed 1960kii Luulyo caawo kale waxay ahayd maalintii ay gobolada koonfureed Soomaaliya ay ka xoroobeen gumaysiga Talyaaniga isla markaasna ay la midoobeen gobolada waqooyi kuwaas oo sidoo kale 4 bari ka hor 26kii Juun ka xoroobay gumaysiga Ingiriiska maalmahaas waxay ahaayeen xilligii ugu horeeyay oo geyiga ama ciidda Soomaaliyeed laga taago calankeena quruxda badan ee Soomaaliya isla markaasna laga tuuray kii gumaystaha meesha waxay ahaayeen maalmo aad farxad iyo reereyn oo ummadda Soomaaliyeed sidoo kale waxay murugo u lahaayeen gumaystihi meesha laga saaray Ingiriiska iyo Talyaaniga Luulyo waxay ahayd maalintii ugu horeysay ee hanka Soomaaliya oo kor u kacay lagu hamiyay oo la higsaday in mar la haleelo qarannimo Soomaaliyeed waxay ahayd maalintan ku heesnay qolada calankeedu waa cayno innaga keenno waa cirko kale oo aan caadba lahayn marka waxaan doonayaa inaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aan uga hambaliyeeyo farxadda iyo xusuusta ay leedahay munaasabadda maalmahaas aadka u qiimaha badan waxa haddana isweydiin mudan xilligaas Soomaalidu waxay ahayd dad walaalo ah isjecel oo isku qalbi furan waxay lahaayeen hal hadaf oo ah qarannimo iyo dawlad Soomaalinimo waxayna lahaayeen hal cadow oo ah gumaystihii markaas ay rabeen inay iska saaraan haddaba maanta maxaanu ku sugannahay Soomaaliya caalamka adduunka maanta in ka badan 30 qaran oo ah qowmiyado kala duwan kala af ah kala diin ah kala dhaqan ah kala kalar ah ayaa waxay isku dayeen inay hal qaran noqdaan oo ay midoobaan innagoo isku diin ah isku af ah hal qaran ah oo isku dhaqan oo walaalo ah oo muslimiin ahna in ka badan 22 sano ayaan waxaan u kala go'aanahay unug gobol qabiilna waa isku haysanaa hubbaan isku qaadanay waa islaynay wadamada dariska ah ayaa xiriir qaxootiga waxa buuxiyay dadkeenii wadaha maalin walba waxa ku dhimanaya boqolaal carruurta Soomaaliyeed ah adduunka waxaan ka nahay wadan fashilmay wadanka adduunka ugu saboolsan wadanka adduunka ugu khatarta badan haddaba marka dhibka ayaa keenay Soomaaliyeed runta marka laga hadlo waa inaga isu keenay maanta marka waxaan u baahanahay xirnimadii maalinta la doonayay mid la mida ama ka weyn inaan helno inaan ka xorowno qabiilkaan isku haysano in aan mid ka noqono oo meel ka noqono shisheeyaha wadankeena ku soo duulay oo danaha gaarka ah wata oo isku keendiraya in aan isjeclaano inaan Soomaalinimo doonno inaan isafina u baahanahay Soomaaliya sidaan wada ogsoonahay ummad wada dhalato dhaqan iyo dhigaal iyo dhiig mideeyo diinteena dhumucda leh isku dhowrtabaanahay haddana ummad wada dhalato diba ay dhex taalo kala dhuntaan nahee inta aan ruwaayadu hilibkeena dheefsanin dhalan ragga ina haystiyo ka dhiidhiya dhibaatada oo ku dhiirada maxay waxaan nahay hal salaamu calaykum.